kulankan oo lagu daahfurayay mashruuc loogu talagalay caafimaadka dadka iyo xoolaha oo lagu qabtay degmada Dolo Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada Dolo Soomaaliya xubno matalay wasaaradaha xanaanada xoolaha caafimaadka iyo beeraha Jubbaland iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala degmada Dolo Soomaaliya odayaasha dhaqanka degmada iyo dhaqaatiirta markaasi ka howlgasha goobaha caafimaadka ee ku yaala degmada Dolo Soomaaliya mashruucan iminka la daahfuray ayaa waxa laga fulin doonaa degmooyinka Dolo Soomaaliya balad xaawo iyo degmada Luuqa waxaana fulin doono hay'adda PSF oo markaasi kaashanaysa hay'adda maxalliga ee SIDA gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Dolo Soomaaliya Aadan Barra Cali oo daahfurayay mashruucani ayaa soo dhaweeyay sidoo kale Ibrahim Awliyo oo ka tirsan hay'adda PSF ayaa ka warbixiyay faa'iidada mashruucan uu bulshada u leeyahay iyo waxa markaasi ay qaban doonaan xafladan lagu daahfurayo hay'adda la yiraahdo PSF waxay noo sheegtay daahfurkan inuu yahay caafimaad xoolaha iyo dadka iyo deegaanka waan ugu mahadcelinaynaa hay'adaha samafalka ka soo qayb galay daahfurkan iyo odayaasha dhaqanka iyo dhammaan inta ka soo qayb gashay salaamaya bismillah maanta halkan waxaan ku daahfurnay mashruuc xaqiiqatan ku cusub deegaanka horeyna aan uga fulin guud ahaan Soomaaliya haddana aan rabno fayskiisa bilowga ah inaan ku bilowno gobolka Gada khaasatan degmooyinka Dolo Buula Xaawo iyo Luuq annagoo ah hay'adda VSF Switzerland xafiiskeeda Soomaaliya kalana kaashan doono hay'adda SIDA oo arrimaha caafimaadka dadka aad uga shaqeynaysa muddo dheer gobolka barnaamijkaasaan maanta ku daafurnay degmada Dolo annagoo nagala qayb qaateen VSF barnaamijka xafiiska Ethiopia oo ay nooga imaadeen marti sharaf gabar mashruuca madaxka xafiiskeeduna yahay Addis Ababa ay nala joogtay waxaan u keenay bulshadii aan ka marti qaadnay saddexaas degmo waxaan marti qaadnay hay'adaha samafalka waxaan marti qaadnay dadka ka shaqeeya arrimaha xoolaha ujeedka kulanka iyaga maanta saas uu ahaa barnaamijkaana halkaa ku daafurnay dhammaan marti sharafkii nagala soo qayb galayna aan ugu sharaxnay programku siduu ahaa horey qorshayaal badan baan uga wadnay gobolka oo ka mid yihiin talaalka xoolaha daaweyntooda ay ka mid ahaayeen fodder production ama cawska oo ah calafka xoolaha daryeelayaasha caafimaadka xoolaha oo tababarro siinaynay muddo ka badan 10 sano waxa kaloon baryahan ku soo kordhinay qaybta biyaha annagoo hadda dhamaystirnay 2 bilood oo la soo dhaafay dayactir ceelal iyo waro degmooyinka Luuq iyo Ceelwa Maxamed Macalin TV-ga iyo raadiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Dolo Soomaaliya